faraxsani gabadhu marreexan ba filayso ma gabadhu waa gabadh ku nool wadanka Nairobi anigu marreexan baan u maqlay inay gabadh marreexan tahay haddaanay haynay sheega waan ka qaaday ama dhool oo kii soo qor fanaanada ku jirta ama dhool noo soo qor hadday saas tahay way hala shar garay barnaamijkan way farmaajo family-geeda weeyaan kiisi cooshadaale ayaaba waxay tiri okay sabax Cabdullaahi Ibrahim aad baan ku salaamayaa waxay tiri waaba farmaajo inaadeertii ruma madaxweyne farmaajo waaba inaadeertii ruma okay horta waxay ku guuleysatay waxa weeye yidii farmaajo waxay ka soo jeedaan family guuleysta oo taariikh siyaasadda kule adeerkeedna siyaasaddu ku guuleystay yadiina waxay ku guuleysatay fankii caalamka oo dhan meel walba gashaba qaar baa waxa tay weydiiyay guuri gabadha ma taqaanaayo waxa ku wari waa in adeertay baan ku wari magaratay mid cadaan oo ila hadlay bay guuri waa iyo war waa in adeertay baan ku wari magaratay marka horta waa lagu faanaya oo caadi qofkii wax soo kordhiyaba waa lagu faanaya gabadha waa marreexan farmaajo in adeertii weeyaan babalini waaba in adeertii farxaan horta farmaajo anuu farmaajo waan taageero madaxweyne Soomaaliyeed weeyaan laakiin marreexan uu ka siiyay ma aqaano anuu qabiilooyinka aad ma si garanaya marreexan ma reer diini uma ka maqlay ma reer diini ba ma reer faarax ba ma yuu marreexan uu ka siiyay noo soo sheega oy gabadhaas waxa ba leeydiba waaba haba si fogaane waaba farmaajo in adeertii weeyaan bali fanaanada nimca habbi heesta caalamka qabsatay qaada okay gabadhaas caabud waaq ayay degan tahay bay tiri gabadhaas ma degana caabud waaq ma degana gabadhu waxay degan tahay Nairobi joogtaa Soma Nairobi degan tahay saan ugu daan maqlay way fanaanka horta qabiil ma laha laakiin de haddana qofka waa la sheegi karaa qabiilkiisa waxay soo qortay ama dhoolba waxay tiri fanaanku qabiil ma laha warunteeda qodobkaas waan qaatay fanaanku qabiil ma laha iyaga isku qabiila iyaga isku reera ambinka u qabta arintaas warunteeda qodobka waa ka qaatay ama dhoolay warunta horta fanaanku qabiil ma laha gabadhan horta niyow iyo heesteeda qarxiyay oo cirka geeyay iyaga laftooda inay sheegno waa muhiim horta gabadha Nairobi 4 sano ka hor bay heestanayd baligu heestani anu imku man maqlaya horena mar baan u yar maqlay 4 sano ka hor bay yiraahdeen dadka heesa aad u yaqaan waxay yiraahdeen waa reer diini baa la soo qoriyay waa reer diini waa reer dalal ma reer dalal bay ka sii waliba farmaajo ma reer dalal ba okay barasho wanaagsan madaxweyne farmaajo hatta farmaajo uu reer dalal inuu isaas ma yaqaan waayo de waxa laga yaabaa deegaanadaas inaan aad u aqoon baa laga yaabaa waxa la yiri reer diini reer dalal weyn gabadha waa laandheer banaan degay oo in adeerkeedna Soomaaliya siyaasadiisi wanaajiyay ilaaluushka diido madaxweyne Magraan Saakiiniya meel saaray farmaajo isaguna waxa weeye koos ka guuleystay way hala shar galay barnaamijka way gabadhaas marka horta anigu si sax ah baan sheegayaa horta guushan ya gabadha gaarsiiyay anoo qabiil ka dhigay wiilka gaarsiiyay horta bulshada baa dhahdaa wiilka musicianka Nairobi jooga waa wiil reer Burca isaga laftiisa hadan qabiilkiisa sheegno waa wiil habar jeclaa wiilkaasi waa wiil habar jeclaa waa sax wiilka kale macal gabadha heesta qarxiyay horta Soomaali marka YouTubers laga hadlayo si gudbiyo barnaamij share garay YouTubers marka laga hadlayo Soomaaliga haysta 2 milyan oo subscribe waa nin Ingiriiska jooga waa wiil reer Burca Soomaali kale haysta ma jirto Soomaali kale 2 milyan oo subscribe haysta oo ciyaaryahanada caalamka oo dhan ay yaqaanaan oo Soomaali kale ma jiro intaan anigu ka warhayo Soomaali 2 milyan oo subscribe haysta jag baa la wiilka jag baa dhahdaa waa ninka heesta hawada geeyay weyn in ninka ragga in la xaqram ma wiilka jag la dhahdaa waa Soomaali qabyaalad ma yaqaano laakiin waa wiil reer Burca habar jecel inuu yahay malaynayaa ama garxaj habar jecel aan malaynaa waliba inuu yahay wiilka horta heesta qarxiyay gabadha caalamka heesta gaarsiiyay waa wiilkaas waa wiil Soomaaliyeed ku faanayn ma qabiil yani reer meel baa saas ma fanaanadana dawaaniga anigu ku faanay aniga cadaanka markii weydiiyay waxa ku dhahdaa waa gabadh isku family nebaan saasan ku dhahay qof walo Soomaaliyana hadii la weydiiyo wuxuu leeyahay nimca habbi waa iyaduna waa Soomaaliyeed buu leeyahay ku faanay soo qof u diidi kara miyuu jira oran kara nimca habbi ma hasaas nimca habbi wiilkaas isaguna jaagal dhahdaa shaqo wanaagsan buu qabtay waa nin YouTuber ciyaaryahanada caalamka oo dhan iyo waxa caalamka heeso dhan yani waa
وليبا waxaan malaynaya imika 2 milyan waa dhaafay subscribe-kiisu waa dhaafay waa caan dhalay hadaan maqasho waa Soomaali kuma hadlo markuu barnaamijyada sameeyo English buu ku hadlaa wiilka meeshaas ku dhashay waa wiil reer Burca oo habar jeclaa waliba marka horta heestan barnaamijka waxa maal galiyay oo oran karnaa mareexaan iyo habar jeclo heesta wiilka magarasa sameeyay ilaa laxan miiska barnaamijka heesta meesha gaarsiiyay waa almareexaaniya alhabar jecliye iyaga iska leh Soomaaliinta kalena way kula dhuuqaysa oo kula dhuuqayna inaga inoo ma diidi karaan waxaan leenahay war waad kula dhuuqayna bal anagu ma kula dhuuqtaan marka wax sameeynay marka waxa weey gabadhuna check baa la dhahaa niw magaciisa baan la yaabay waaba de anu waxaan sidoo ninku magaal baa ma Soomaali ba anu bariga hor dhawayo mar badan daawaday laakiin wiilku waxa weeye dhaqankii Soomaaliga waa haystaa magacan check ee uu la baxay waxa sayra waalan ma ahaane wiilku waa wiil yaani baromood gareeyay dadka Soomaalida oo dhan ayuu caalamka ka iibiyaa waa yaani Moy Faarax iyo ka iya saaxiiba Moy Faarax iyo waxa saaxiib yihiin check baa la yiraahdaa dad YouTube-kiisa eegto yaani 2000 iyo demeeshu ku dhashay baan ku waa Ingiriis caadi ah 2000 ayuu haystay 1 milyan oo subscribe wali Soomaali meesha gaaray ma jiraba marka wiilkaasi heesta sida ay waliba waxa soo xiganaysa astaan baa soo xiganaysa qabyaalad maaha wiilka way sheegeen check baa waxay yiraahdeen heesta qarxiyay oo caalamka oo dhan gaarsiiyay maadaama uu warbaahin weyn haysto qofka Soomaaliga waxa la rabaa qofkiisa walaalkii ee Soomaaliya horta heestan waxa abaalka kule heestan waxa iska leh Soomaali caalamka maca gabadhu way mahad celisay oo caalamkana way mahad celisay laakiin mudnaanta waxa iska leh sida anu aaminsanahay Soomaalida ayaa mudnaanta iska leh maadaama heesta ay iyagu qarxiyeen waxa gabadha meesha soo gaarsiiyay ama reer Bucaha ama reer Gedaha check magaciisu waa soo qoran yahay YouTube-ka waa ka eegi kartaan ninkaasi waa reer Buco maca kuma faanaan ma yaqaanaan baa English ma yaqaanaan reer Buco marka ma ku faanaan oo ma oranayaan baa reer Buco anaba sheegay qof mala yiri waa reer Buco ma jira ma filay okay oo reer Buco bilaayo dhab laga helaa waxa laga helaa qaar migrants ah kiniisadaha ka eedaama qaar caalamka migrants ah xilal waaweyn ka haya qaar baarlamaanka Yurub ku jira wax walba waa laga helaa Buco waa meel ruwaayada wax walba way joogan maamid makiinad ka eedaamay waa laga yaabaa in la helo marka anyway waxay soo xiganaysaa magaranaysa ay astaan ayaa barnaamij ka sameysay waxay sheegtay heesta cidda hawada geeysa waa kan waa wiilka weyn markaas si shargalay waa kaas wiilku waa kaas weeyaan check baa lahdaa de qof walba uu burmado laga war helay adduunka oo dhan oo af Soomaali ku wada heesaya qaadayana heesta waa wiilka weyn check ay qaado fanaanada check baa lahdaa everybody knows caalamka oo laga yaqaana erayo luqadda Ingiriiska Carabiga iyo Sawaaxiliga ayaa soo baxday muddo 4 sano ka hor ah waxaana erayadan heestu markii hore way qarxi weeyeen bar 4 sano ka hor bay soo baxday halka uu muusigana ku laray Maxamed Cabdilaahi Diiriye Bulshaawi oo ah musician Soomaali ah ولو musician kan tumay heesa badan oo bulshada waa nin soo reer Buca anyway adigu waxyaabaha heesa u tumay ka nimaadno wiilku waa ka weyn adduunka oo dhan oo af Soomaali ku wada heesaya qaadayana heesta isii nafta ay qaado fanaanada Nimca Habi heestan oo ay ku jiraan erayo luqadda Ingiriiska Carabiga in wax la isku qoro way fiican tahay gabadha fanaanada cod way haysaa qaabkeeda wixii oo dhan lagu dhigi karo waa fanaanad weeyaan muusigana ku laray Maxamed Cabdilaahi Charles ka hesho shirkada waaweyn la gashoysina waa guul Soomaali soo yeeshay kan tumay heesa badan oo bulshada Soomaalida caan ka dhex noqday isla markaasina ay qaadaan fanaaniin caan ah haddana falcelinta ka dhalatay heestan ayaa gaadhay heer walba iyadoo ay ka soo falceliyeen dadku niyo ma sheegaan qofka waxa musicianka fanaaniin kale oo karaamo badan loo mahay waa ninka de heesta macaaneeyay waxaan macnaha u yaraa warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa heestan oo gaadhay ilin kasto oo adduunka kamid ah heesta waxaan tunay horta heestu waa heesta waa wiilka weyn wiilka reer Buco si nafta ama loo yaqaano I love you more than my life I love you more than my life waan ku jecelahay inta oran karo inta ku jecelahay karo waan ku jecelahay kooxda Fandis baa waxaan asaasnay sanadkii love you like Sara bar muuqaalka sida shargareeya walaalayaal Soomaali guul baan leenahay gabadhaas reer dalaalna waxaan leenahay iyo wiilka Bishaawi iyo Jack teamkaas ku dhan heesta cirka geeyay waa maasantii awaan kooxda ka tirsan Cabdirashiid Dagajile aqalka la yiraahdo laxgana waxa saaray saaxiibka isto kooxda ugu jira oo la yiraahdo Cabdulmudallib Ciise Saalax labadooda waalkana ka salaamay niyahow faankii dadka
ayaa kobcayo iyo garaadkii afar sano ka hor baa la qaaday heesta say sheegeen horukac laga Waa kicii weyday markaas. sameeyay iyo isku xidhka bulshooyinka kala duwan ee kala Sax. afafka iyo kala dhaqanka ah waxa uu wiilku sheegay horta mid aan idin sheegay heesaha Soomaaliga sababta inagu fanaaniin fiican weyn leenahay sababta heesaheenu caalamka u gaari laayihiin bulshaawi baa sheegay waxaanu yiri dhibaatada inaga haysata waa fahanka luqadaha heesta waxa ku jira I love you more than I can say magransa ya habibi waa jacay waa carabi nukumbenda oo iyaduna magransa sawaaxiliya oo iyaduna jacayla shatem mala faransiisna uu ku jira baan maleynaya heesta waxa ku jira sawaaxil jacayl baa lagu sheegay carabi baa lagu sheegay english baa lagu sheegay waxa lagu sheegay faransiis baa lagu sheegay sababta markaa heesta kor u kicinaysa waxa weeye dadku ay u fahmayaan waa luqadaha kala duwan weeyaan waxa runtii heesta maadaama afar sano ka hor la qaaday qarxi weyday sababta maanta qarxisay waxa muhiim weyn u ah ama yaani la fadhabar waxa uu ah wiilkeena Soomaaliyeed jag la raahdo jag YouTube kiisa hadaad gasho de waxa weeye waxa la siiyay silver ma haysto diamond bay isagu dahabka buu haystaa waxa weeye waa nin de magransa ay wadanka ku dhashay oo Soomaali baan la saaxiib ahayn oo de waxay meesha u jiraado ciyaaryahanadu waaweynaa taqaaniin marka bal indhigisano sida ay viral noqon lahayd oo filay wuxuu waxa la oran karaa waa hees ka horeysay dadka laakiin imka ay dadku soo gaareen wallahi waxay iga soo noqday falcelin aad u fara badan oo aad u fiican positive صح سينا شرقين برامج iyo aniga yeelanta heesta qaadayba nala xabarinayo waxa kale iga soo noqotay in market uu jiro oo music-geena iyo dhaqankeena iyo fankeena inuu iibin karo ayaa halkaa ka muuqda very good point okay guul Soomaaliyeed weyn that's good okay guushani waa guul Soomaaliyeed mareexaana gaar uma laha habar jeclana gaar uma laha waa guul Soomaaliyeed Soomaali oo dhan baa sheegan karta fanka Soomaaliga fanniica loo baana meelahan nuqsuka iyo meelahan sugsuka iyo waxa loo baan war fan caalamka inaga iibiyo hadaan Soomaali nahay oo la yiraahdo heesta la qaadaya waa Soomaali baa iska leh ayaa loo baahay oo caalamka magransa ay de gaaraysa oo heesta noocaas gabadhu magransa ay nukumaan noocaas oo kale heesta noocaas oo kala way waxa kale oo la geeyay gabadha shirkadda magransa ay soo saarta productionka filmaanta ayaa la saxiixatay nimca habi saasay taajirad ku noqotay oo ay milyaneer ku noqotay waxaana saan maqlay lagu soo macsuumaya wadanka Ingiriiska magransa ay way okay waan geenayaa waxaana magransa ay runtii ay noqonaysaa ka mid noqonaysaa dadka actorinta ah waaweyn ee caalamka ah gabadhaasuna saasay dhaqaale ku heshay waxaan u hambalyeynaa waxaan leenahay adiga iyo cidii ku soo gaarsiisay meeshaasiba waad ogtahay ama musician ha noqdo ama magransa ay youtuber ha noqdo ama qof kale oo dadka ku sii tusay ha noqdo ama dadka Soomaaliyeed ee TikTok isticmaala the power of media ee Soomaali oo dhan weyn ayaa iskale magransa ay inaad u meelceliso dadka Soomaaliyeed ee wax ka dhigay ayaa muhiim dadka Soomaaliyeed ee meesha ku jira TikTok-ga ayaan oran karnaa iyaguna laxaad yani meel muhiim ay ka qaateen dad badan oo caalami ah ama wariyaasha caalamka de ragga de magransa ay jiite ee de caalamka de la dhilgareeya ee meelaha suka aan magransa ahayn okay gabadhu markaa heestan waa kan barnaamijka ciida laga duubay 3.5 million for years baa daawatay RTM Soomaali baa duubay heesta waa kan 3 sano ka hor bay 4 sano waa heesta taas hala shar gareeyo heesta qof walba oo fahmay macnaheedu يعني heesta macnaheedu laxanka suu saaray bulshaawi aad u matay waxaad moodaa way ka duwan tahay si kale isii naftaana heesta
very good very good ubaxaan beeray maanta it's very wonderful waa hees aad u wanaagsan ربك يا حبيبي نكبندا من سانا ووجدنا نكبندا الحب وحب عادي I love modern I can يعني مهما هو حرجتي I love you modern I can say وانكو جعلها انتان كورن كرو وانكو جعلها هستد يعني ملها قابك يعني أقول عيسو وقاب عالم كله فهمه يعني ده عالم كله حسوي شيء تبع كرنا I love you هرت love لما يده وقلت سومالي تو love بيقول وقلت لكن اسمع love بالله وقلت I love you more than I can say لكن بل أنت يضو أي شيء سواء أنت هسه أصوات قدمتي مودرن بك يا حبيبي كوتشي عراي مودرن بك يا حبيبي very good هستني عالم كي كقدمتي مسرحية عالمك يستيجد عالمك أيها الصومالي اللي قد يسنيها it's very wonderful وشيء مقران صحيح الصومالي نماذج كنت على سينية I love you more than my life بيتر صح هسه يعني تروح ويا I love you وحن كنت على هاي more than my life نلاش شيء أنت عن على هاي ما كنت على هاي وحن كلو جرتي أنا وأخوه غني ويدنا إنجليز بهاد هسه أصلا هسه واحد دين فنان ما تو باك قاعد يشرب على ملايين waxaa la oran jiray I can fly I can touch the sky markaa heestaas waxay ahayd I love you more than I can say ayay taasuna ahayd waan ku jecelahay intaan ku oran karo yani qofku intuu ku oran karo waan ku jecelahay laakiin tani waxa weeye waxay tiri gabadhu I love you ma garanaysaa iyadu waxay tiri I love you more than my life waan ku jecelahay in ka badan noloshayda naftayda ama noloshayda intaan jecelahay in ka badan ayaan ku jecelahay marka heesta waxa macnaha weyn u sameeyay midhaha weyn waa midhaha caalamka oo dhan waxay leeyihiin de qofna ma jiro qof kala jecel intuu naftiisa jecel in ka badan soma runta marka laga hadlay marka hore waxa jeceshay naftaada ma jecelid marka yaani qof kale naftaada in ka badan oo yaani naftaada saad u jeceshahay wax kale ma garanaysaa way September هذا فرانسيس وحنا مالنا كم تجرو هستا فرانسيس مو كجرا September هذا يعني تشايل September يقول هذا فرانسيس ده عربنا وقرنا إنسان الحب العشق الحب يزداد وينقص الحب حب بلا فلوس نيكل هوا هستا مركا قبل سوقات دي وحوي عالم كاي قلقشي قبل داسنا وحال مغلي وحال لقوا معسومي وضع إنجليزكا كل وين ما نيسا من عهبي وحكلو أن مغليا شركة وين بالله صحيحتي وميوزك برودكشنه إن مقرانسا هستن كوبي رايت كذا أما وحيد ودنا يلاتو مركا قبل داسي ديشي فقري واتورتي ديشي فقري واتورتي قبل داسو كل يدي مركز وحوي وواحدة إلهي لصدق تويان مركا وحنا نهروسعو عالم كرا كم نقو dadka stariska ama super stariska qof walo Soomaaliya meel ha ka gal caalamka kaalin ha gal kaalintaad gali karto gal caalamka kaalintaad ka gali karto ka gal meeshaad ka quusi karto ka quus laakiin meeshan aniga hay soo hor fadhiin caalamka haddaad dhakhtar noqon karto haddaad baylad noqon karto haddaad ma garanaysaa waxaan arkay iyadana gabadh caawa ka qayb galaysay cimilada adduunka ayay ma garanaysaa global warming-ka ayay waddanka Ingiriiska ka qayb galaysay gabadhiidu reerkiisa ahayd waa gabadh qura oo kaligeed tagtay meeshaas yaani caawa madaxweynayaasha caalamka oo dhan baa joogay meeshaas kaligeed baa gabadh ka ahayd Soomaaliyada iyada lafteedu waxa weey waan hambalyeynay marka dumarka Soomaaliya waxaan leenahay
shaqadiina waa qabsateen caalamkii waa barteen raggii laakiin lama hayo raggii waxay ku mashquulsan yihiin heblaayaa la soo qaawinaya heblaayo canab baa la soo qaawinaya ma garanaysaa heblaayo kale la soo qaawinaya shaadiye sharaf baa video laga haya ragga waxaas ku meereysanaya ragga waxaan caawa leeyahay war meesha fadhiga in ka kacno waxa weeye dumarkiiba idinka dheereeyay tartanka kuma jirno waxaan ka sheekeynaynaa googorad iyo nigis waxaas ka sheekeynaynaa ragow way maqlaysaan anigu been idin sheegi maayo nakubenda san waay nakubenda ma jacayl kahayn qof baa ii soo qoray nakubenda shatem waxa weeye waa Francis weeyna shatem Francis sidoo jacaylka ugu dhawaaqaba cajiib ma garat marka good reputation for Somali sumcad weyn bay Soomaalidu soo hooyeen raggii Soomaaliyeedna maxay soo hooyeen Commonwealth-ka ay Soomaalidu dumarka ka qayb galeen caalamkii bay Mareykan bay ka qayb galeen ragga Soomaaliyeed maxaa ay ku tirsan yihiin lama yaqaan marka qodobkaas faallada caawa fanaanada Nimcahabi aad baan u salaamayaa musician hawsha iyo magarasa Bulshaawi iyo Jag iyo dhamaan waxaan leeyahay thank you your significant information aad warbixinta caalamka siiseen meel walba gaarsiin way qodobka intaas ka baxay waxa kale oo galaya ragana waxa la kor soo qaada meesha way nagu ceebayseen waxa li wax faa'iido waa aan meesha ku haynaa ma jirto gabadh soo qaawiyo mid gabadh daba socda mid gabadh la xintamaya iyo mid kale oo magarasa ay TikTok dhex meeraysanay leh lacag la soo diro diyaarada la soo diro warado shaqayso diyaarada hay soo diro waxaan joojiye Soomaalida waxa weeye dadka diyaarada diray waxaan u sheegay horta waxna waa khamaar horta waxa meesha lagu ciyaaro waa khamaar waa iska garanaysaan de khamaarkuna inuu banaanyin kala wad garanaysaaba kuma sheegayo taas TikTok waxa lagu ciyaaro waa khamaar lacag baa la kala helay lacagta khamaarka adigu ha dirin daawo hadda doonto laakiin ha dirin diyaaradan iyo ma garanaysaa mootadan iyo waxaan meel lacag hay lacag dirisho weyn waa qofka khamaar buu waxa ku ciyaaraya wad iska daa ka bood marka waxaan dileeyahay ma garanaysaa lacagtaada siiro sadaqa u bixi dad kala gaarsi meel kala gaarsi lacagtaada laakiin lacagtaada ayaan lagu cunin haddii la leeyahay caalam baa la ciyaaraya oo Soomaaliya caalamka wada ciyaaraya taas waa la garan lahaa laakiin Soomaaliya caalam wada ciyaaraya Soomaali iyaga isku dhex caaya meesha rag baan arkay hooyada waxa ku sameeyay hooyada waxa sameesha laga leeyahay ruuxaas waa baraas uniyo aqli baa la keenay waxaana daawanayaa dhalinyartii naga yaryarayd bayna daawanaysaa qaar naga weyn qaar naga yar inta way leedahay marka waxa laga faa'iido marka TikTok soo fariisanayso wax ku soo kordhi dadka uu faa'iiday wax tiraada TikTok qaabka ay saas lacag lagu hela qofka Soomaaliga lacagta qaabka loo helo bar waxaad ku dhaanta bar wax kale oo horumarkiisa bar caalamka ay qadiyada Soomaalinimada iibino Soomaaliya caalamka ay gaarsiino khayraadkeeda dhalinyarta Muqdisho jooga aad bay u mahadsan waxay soo duubaan badanaa ama Hargeysa jooga ama Garowe jooga waxay soo duubaan meelaha quruxda badan ee Soomaaliya leedahay ay soo duubaan waxa kale oo jira YouTuber wax fiican soo duuba intaas ba uu hambalyeynaya laakiin TikTok-ga lacag la igu sameeyo lacag la soo diro waxaas ma soconayso lacag cid ku soo diraysa ma jirayso dadka lacagta ka dhamayn habeen walba game baan ciyaaray lacag soo diro aqli ma wax soo inaad xishoto weyn war qofkan hadduu laba habeen ku soo diro saddex habeen ku soo diray diyaar waxa weeye qofka inaad shaqo ka dhigato ma waa dawrsi noociisa qof baa dawrsanaysa lacag soo diro habeen walba habeen la garay laba la garay saddex la garay war waxaan naga daayniyo YouTuberiska Soomaalida ay dadka meelaha fiican soo duuba waa maadsin qodobka intaas ka baxay qodobka siyaasaddan galay hala shargalay barnaamijka waaya waxaan maqlayaa ninkii Roble mawlid video muxuu yiri kan maxay tahay mawlid videoga ii duub laakiin ha dirin video maxaa ku soo duuba xishood ku yaano ka tigi wala gabar baa video soo duuba video rabtaa waxaan u sheegayaa gabdhaha videoyada duuba waxaan u sheegayaa gabadhayna video ha duubin qofna ha u dirin iska ilaali wallahi qofka video u dirtaa qiimo kuma hayo gabadha video qof soo dirtaa wiilkaad u dirtay wax qiimo oo ku haya ma jirto mana ku guursanay gabadha lafteedana waa saas ninka video soo dirayaduna ma jecla marka waxa weeye gabadh hadda tay video ha dirin wiil hadda tay video ha dirin qofka hadday rabtaan wadada saxda soo mar gabadha doon guurso wax ka dhaxaya ma jiraan video ii soo diriyo ii kala kiciyo waxaas ma jiraan waxaas dhaqanka Soomaaliga maaha iska ilaaliya wadii sheegay dumaraw aniga mid daaway imka ii soo qorisay video ii soo dirbay leedahay
ما حشونيسو إن أنا كحشوت ويا وذات كحشوت وذات كحشوت مياد حشوني كمان لا وحي يسوق سبحان الله سبحان الله ورح شوط إني وحشوط وويلنتي بين نقول فيديو محمد ضمني مرة وحنا شيء فيديو يلا تشوتشيو وحلا الضوء يلا تشوتشيو وحنا دي شيء dumarka waxaan u sheegayaa Soomaaliyeed meel wal oo joogan qaar baan arkay mar dhowta live ku jira TikTok oo iyaga laftoodu fiidiyoyo ay biis ku shubayaan fiidiyo aad biis ku shubayso iyo mid aad suuli ku jirto haddii ay jiraan macaal private ka dhigo wixii adiga kugu saabsan private ka dhigo private waa taqaanaa TikTok meesha laga dhigto public ka dhigana private ku qabo waa fiidiyoga waxaas asaas iska ilaali in laga qaato haddii kale remember baa lagu gelin doonaa remember ma darad baan arkay mid sawirkayga sita oo le mawlid baa sidan ahaa hebel baa sida ahaa horta qofka rememberka noo keenay qof waalin weyn qofka rememberka inoo keenay maaha qof waxaan sii malaaba qof islaam maaha masra ninkaasi remembering buu meel walba gelinaya remember uu qeylaya remember eeg hebel saasuu ahaa saasaytay hebel ay waxa sameeyay hebel baa waxa sameeyay war dhaqanka naga daaya iyo dumarkan qaaqaawan iyo dadka indhahooda u tura indhaha dadka u tura waxaan ma garanaysaa ahlan wa sahlan okay waa salaamay indhaha dadka u tura walaalayaal naga daaya waxaan qaaqaawan dumarkan waxaan ceebtan naga daaya wixii ma garanaysaa qofkii waxa sameeya ma garanaysaa hal takooro hal nacdalo oo qof xun weey waxa sameeynaya qofka soo gudbinayana waa wax war haddaad wax xumaana macal ugu soo diray ha noo soo diray بالله عليكم أنا صدر فيديو قالها كيرين تيك توك يو فيديو مالها كين ولا شعر كلوين كبردو اسكدا هداي وحاس كصوب حين ودول قاضو إلهي هنا كجبا أشر بد كويليسان اسكدا ديليت جريت وحوي هكوا هيسن الموبل كاك قطب كيس ياسد تنقليه واي أنت سوي وعي جرين ويا دوما كانوا دريو أن لا يحي قاربا وحي ليهين ولي واحد كدران يعني ما فيديو أو قرا لقى صوت ما هداد قف عضو ضبطه يمكن عد كا وكله ويسقي لفتيس ما فعلا دمر على عد وح قلاد كو هادلي يا عد كود الصوت دوبي وقلاد عد كا يلاشو صور كا يلاشو فيديو يان لقى دوبي صدح ارين بس كيراني فيديو صور عد صدح ما اسكيراني كرتا واي انت سكبح waayahay halka iyo aynu galno ma garan siyaasadii qodobka siyaasadda caawa ka hadlaya waxa weeye ninkii Roble waxa xilkii ka qaaday ma garan saay la tali hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha koofi buu xilkii ka qaaday nin kale xilkii uu magacaabay horta Roble filmaantiisii buu soo wataa heshiiskii imka uu galayna wuxuu rabaa inuu ka baxo anigu waa sida aaminsanay Roble wali ma garan saay حلال ما هم كان ليه هاي روبل آمن ملها نيك روبل الله ينهض عاول طريه مقرسة هاي السعودال كو يوحلك كقاضي مثل الله ما قاعي ولي وحيب وضع روبل وحن شيء يا روبلو فرماتشو أنتي وكود القادني وكود القاطي مركن ضمبه حلك هذا وايسة ما دام هرونا حلك اللي قاعد دمي ومقرسة هاي ورد مكريزو سارب بحبة حين دورشدي سومال لان بعد لا دوان كنترولية caawa waxa tagtay meeshii baa tagtay shaqadaada waxaas wad wadan kartaa laakiin shaqaalaad Roble lahayn faraha la gelin mar hore lagu dul qaatay marba lagu dul qaatay laba lagu dul qaatay jooji waxna wado waa lagu arkayaa faragelin baad imika soo wad soo bilaabaysaa waxa weeye farmaajo mar dambe kuma dul qaadan doono xilkaagana wad waayaysaa yaan laga waalin ma ku leeyahay ciid ma garanaysaa ku soo celinaysa iyo ciid xilku magacaabaysa ma jirto Roble intaasaan leeyahay on leeyahay magaraysa ka joog agaha dhiiqayaan lagu galinin mar hore lagu galiyay iska ilaali waad soo bilaabaysaa waan ku arkaynaa imika annagu waan ku jeednaa waxaad ku tashataa in lagu ereeyo mar dambe haddaad waxa samayso waxaad ku tashataa Roble la helow in lagu ereeyo ra'iisul wasaaraha kugu leenahay laakiin waa lagu eri doonaa Roble intaasaan leeyahay dadka kala bedbedelaysa iyo waxaan aad u shaqaynaysa jooji siyaasadda madaxweynaha meesha wadanka jooga farmaajo mas'uulka ah isaga ayaa hawsha wadaya jooji adigu meesha fariiso wixii lagu diro qabo haddaad qaban weydo albaabkaad ka baxaysaa taa ogow ku biicabtaas ku tasho waa inaad ku tashataa
واي قدر كان روبل انت سنو شيغيا روبل كله وحب مقليو انت سنو شيغيا اون فرينتا سنو دريا واي waxa kale oo ku daraya xagga Soomaaliland bay diyaaraddu tagaysaa xaggaasanu duulayna Soomaaliland waayahay caawa waxa hadlay gudoomiye ku meel gaarka ahaa ee xisbiga wadani ahaan jiray Cabdiqaadir Jirde waraysi dhamaystiran oo Hoyn Cable TV ka qaaday ayaan waraysiga dhageystay waayahay Cabdiqaadir Jirde mar waxa uu leeyahay waxaan ahay 80 jir wadankana nin 80 jir hadaan ahay been uma sheegayo naftaydana been uma sheegayo 80 jir baan ahay anigu ma garanaysaa 27 ayuu cirra igu yiri 27 ayuu baan deen noqon karaa murashax markaas waqtigaasna waxa noqonayaa buu 80 waa ka cudur daartay marka in xil iyo gudoomiyenimo loo magacaabo mar saas uu leeyahay markana dadku way leeyahay wuxuu leeyahay hada waa isla isagii mar wuxuu neeyri 80 jir baan ahay oo da iyo waqti baa yahay oo ma awoodi karo mar saas uu leeyahay marna wuxuu leeyahay dhaqaale leey waayo reerkaygu dhaqaale ii waayay waa laba markale wuxuu leeyahay reerkayga aan garab ka waayay anigu Cabdiqaadir Jirde xoogay waan ku yara confuse garoobay khudbadiisii ninku ma wuxuu leeyahay hadii lacag loo helo beeshiisuna ay taageerto micnaheedu waxa weeye marka murashax waa gudoomiye oo tartamaya ma saas u jeeda mise wuxuu leeyahay anigu totally gudoomiye ma noqon karaba oo daabade iyo waqti baa ay xiray anigu waan kala garan waayay laakiin haddaan tadamba u qaado Cabdiqaadir Jirde sababta uu xilka u baneeyay marka afgobaadsiga laga tago waxa cadeeyay Jawaan ninka Cabdullaahi Jawaan la yiraahdo waa nin runta sheega Cabdullaahi Jawaan ninka la yiraahdo runtaada ugu imanaysa Cabdullaahi Jawaan wuxuu yiri Cabdiqaadir Jirde wuxuu u tagay beelaha Arab ganacsatada ugu weyn buu tagay buu yiri waxa uu bandhigay uu yiri waxaan rabaa gudoomiyaha xisbiga wadani in laga dhigo doo gudoomiye waa la ogoliyo Cabdiraxmaan Cirro way siinayaan dhaqaalihii de xisbiga aan ku kaambeyn gareyn lahaa aan hawsha ku gali lahaa ayaan u baahanahay waxa uu yiri dhamaan waxay ku yiraahdeen orado gurigaaga waliba wuxuu qaar xisbiga kamid ah isagoo Cabdiqaadir wuxuu yiri ku xisbiga yula jira waxay yiraahdeen orado gurigaaga iibi ilma jirdo guriyooda iibi saad ma garanaysaa gudoomiye uu noqoto ganacsatadina waxay ku yiraahdeen gudoomiye tahay ku meel gaare marka murashax noqoto ama gudoomiye caadi noqoto markaas wax ku sheegna marka Cabdiqaadir Jirde daa'ima hayse arinta 80 jir Muuse waa 80 jir Muuse biixiba Muuse 80 kii waxba u dheer Cabdiqaadir Jirde xil waa rabaa hadda run doonaysaan Cabdiqaadir Jirde anigu marka dul istaago qudbadiisa hunguri waa hayaa gudoomiyaha xisbiga wadanina waa rabay taa ku biicaba waa doonayay wuu rabay inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga wadani laakiin ba meesha taala waxa uu waayay tolkiibu waayay beesha Arab oo garabkiisa ka baxay oo soo buuxin waayay golihii dhexe ee loo diray way soo buuxin waayeen dhaqaalihii looga baahnaa way siin waayeen qaar waxay ku yiraahdeen intay ku jeesteen orado guriyiina iibi kadib baan wax ku siinaynaa qaar kalena waxay ku yiraahdeen warniyow waraabutaag baa tahay gudoomiye sax ma tihid murashax markaad noqoto ayaan wax ku siinaynaa horta caawa odayga waraysiga laga qaaday qof walba ma garanaysaa daawaday niyad buu ahaa qoos buu taagnaa odaygaasi waxaan runtii aan aad uga xumahay inuu ninka weyn caawa meeshaas uu dareemaysay inuu ma garanaysaa garab waayay ayuu noqday Cabdiqaadir Jirde waa geesi ka dhashay dad aan garab siinayn ayuu ka dhashay ama dad aan garab taagnayn oo dhaqaale ahaan iyo ma garanaysaa ficil ahaan ku garab taagan ayuu ka dhashay Arab baa ficil leh iyo Arab baa cayn kana mar dambe ayaa la odhan Arab waa gumowdeen baa noqotay sababta gunta oo noqotay waxa weeye Cabdiqaadir Jirde ayaa marna leedin gurigaaga iibi marna leedihiin waa waraabutaag marna leedihiin ma garanaysaa anigu dhaqaale kuma haynay murashax noqon
waxa weeye meesha waa ku ceebeysantiin meesha iyada waa ku ceebeysantiin dadka kale waxaan leeyahay odaygaas haddii ay dad xalaali jiraan war ninka maanta wuxuu dhaqaale u baahan yahay ha loo sameeyo wixii magaranaysaa garab u baahan yahay ha loo sameeyo xirsi ha la tartamo xirsi ha la tartamo si emergency ninka waan dhaqaale lagu ururiya cabdiqaadir jirde waa nin odaya muxtarama ehlo sharafa dhaqaalaha loo ururiyo halala tartansiiyo xirsi hadduu xirsi ka helana waa la arkayaa horta xirsi hadduu xisbiga kula tartamo waxaa helaya cabdiqaadir jirde xirsina suu sheegay kulama tartamayo ma garanaysaa xisbiga oo cabdiqaadir jirde la siinayaa marka waxaan leeyahay warniyow ninku weli waqtigiina ma dhicin cabdiqaadir jirde ganacsatada reer Somaliland waxaan leeyahay warbi waaye ninka u ururiya 3 milyan waa ururi kartaa shirkadda Telesom oo qura bixin karta daabshiil oo qura bixin kara daabshiilna 1 milyan laga soo qaado Telesomna 1 milyan laga soo qaado 2 milyan odayga hala siiyo cabdiqaadir jirde hala siiyo waxaan waa gunnimo weeyaan waa sumcad darre weeyaan nin TV-ga ka calaacalo wax walba sheegay oo yiri dhaqaale la'aan bay reebtay 2 milyan ninka siiya xisbiga wadanina guddoomiyenimadiisa hala siiyo wixii uu ka helayo ha ka helo cabdiraxmaan cirna saa doorashada ku gal murashaxiisa saan ku gal anu saasan soo odhan lahaa haddii kale ninka waa xisbi kale guddoomiye looga dhigaa ninkani xil waa rabaa laakiin mushkiladda haysata waa dhaqaale iyo reerkiisu garab siini iyo reerkiisu qaarna kulmiye ma garanaysaa u afduuban yihiin qaarna ucud ku jiraan qaarna wadani ku jiraan war guddoomiye marka reerka uu rabaan waa in ninka wada raacdaan waa inay ku daba tugtaan waa dadkaasaan xirsi imika xisbiga wadani lacag ma gelin say suu sheegay cabdiqaadir jirde xisbiga wadani xirsi lacag ma gelin soma haddana guddoomiyennimadii waa ka banaanka ka qaatay guddoomiyennimadii cid kula tartantu waayay banaanku ka qaatay waxa laga yaabaa lacagna inaan la weydiinay oo iraahdo dhow ganacsatada daabshiil baan lacag ka soo qaadaya iyo hadhow iyo deyn iyo wax noocaas xiliyaha deyn baa lagu koraa Faysal Caawrabo intaas uu ordaayo cid lacag ma weydiiyo haddana isagu baa isfarsameeya xisbigiisa iyo xafiisyadiisa iyo howlihiisa isaga wata Faysal Caawrabo dadkaas uu ma garanaysaa wax ka soo qaata marka waxa weeye anigu ninka la dhaca Cabdilaahi Jawaan hadalkiisa baan dhuuxay waan fahmay meesha dhaqaale la'aan baa jirta dhaqaale la'aantuna ceeb ma aha dadka waa la helaya haddii dhaqaale la helo dadku way taageerayaan 2 milyan daabshiil iyo Telesom ha bixiyaan odaygaana meesha ayaan laga reebin haddii gobonnimo jirto way haddii kalena qof walba meesha ka qoslo hay dhacdo cabdiqaadir jirde yidhi cabdiqaadir jirde ooyey warn waraysiga marka laga qaaday nin weyn waa garan karaa ninka ilma yani waa ooyey waa arkaysin su'aalaha la weydiinayna su'aala yani xoogay ma garanaysaa anshaxa aanu fiicnaan bay ahayd lacag baad qaadatay anigu su'aashaas u weydiiyey ninka xasan waa ku qaldanayd inaad odaygaas intaa leeg 80 jirka tiraado lacag baa lagu siiyey su'aalaha noocaas oo kale waa naxdin bay leeyihiin iska ilaaliya qoladiina saxaafaddu odayaasha idinka waaweyn lacag baad qaadatay iyo laaluush baa lagu siiyey waxa weydiinina iska ilaaliya waa ceeb waxaas ma wariinimo waxaas oo kale marka waxa weeye odayga cabdiqaadir jirde waan dhageystay waan maqlay ninkaasi dhaqaale la'aan ayuu ka cawday waa ka cawday garab la'aan buu ka cawday marka ninka labaha iskugu daranay dhaqaale la'aan iyo garab la'aan iskugu daranay dhaqaalaha shirkadaha waaweyn ha bixiyaan 2 milyan gacanta laga saaro lagu dhaxdo guddoomiyenimadaadii ku hawlgal fangare waxa hawshaada ku qabso ma fahanti marka waxa weeye muxuu ninkaas soo qoray arab odayga cirabku ayaa magarasa yasay oo ku balan furay uu soo qoray meesaas ma cirra ma yasin kumana gara furin qofka waxa soo qoraya waxaan leeyahay cirro waa hogaamiye fiican weeyaan cabdiqaadir jirdaar caawe iyo cadeeyay oo yiri cirra wuxuu yiri 2018 ninka ragga libintiisa lama qariyo cirra ayaa ku magarasa balan furay arab buu magarasa yasay waxaas ma saas ma
labadii kun iyo 17 ama 18 ayaa loo yeedhay cabdiqaadir jidde suu sheegay suud waxaa lagu yidhi xisbiga guddoomiyenimadiisa lagu wareejinayaa kumeel gaarkana waad ka baxaysaa waxaa laga dhigayaa guddoomiye shirweynaha marka la gaadhay imika shirweynaha marka soo socdana waxaa laga dhigayaa rasmi kumeel guddoomiyaad noqonaysaa saxa marka shirweynaha la gaadho waan diiday buuri isaga ayaa afkiisa ka yidhi waa kan waraysu reer hebel baa la yasiiyey reer hebel baa wax loo diiday maaha sheekadu waxa weeye ma garanaysaa ninkaas ragga ah cirra waa siiyey waan u sheegay siduu cabdiqaadir jiddaaba arrintaa qiraya oo yidhi cirra saasuu igu yidhi oo cirra ma garanaysaa waxba umu diiday ninkaas cirra waxa uu diiday oo ilaahay leeyahay ma jirto waa haddii run la rabo weeyaan waxa weeye ma garanaysaa waa kaas waraysiga halku ku jira waa dad baa la diiday waxaas maaha sheekadu odayga nin reerkiisa ka fadhiistay haddii dee reerku aanay dhaqaale hayna dhib ma laha reerku haddii yidhahdeen dhaqaale ma hayno anagu waa in ma garanaysaa ninkaa ma garanaysaa si kale loo farsameeyaa oo wixii ma garanaysaa ay shirkadaha waaweyn ay bixiyaan ninkaas waa rabaa xil 80 jir baan hayo waxaas waa muuseba waa 80 jir ninkana ka caqli badan muuse ha tartamo wixiisa ha qaato waa kaas yaan loo sameeyay hiilka cad dhegeyso waxaan hore u jiri jiray oo siyaasadda Soomaaliland ku cusub waxa xisaabta ku cusub loo sameeyay ayaan daro tiimay dhawaan dhegeyso bal odaygaas xisbigu waa kii guuleysan muxuu ka maqanaya muxuu ka cabanaya odaygu imika waxaa timay markaa waqtigii baa la gaaray imika shirweynihii cabdiraxmaan hadii madaxweyne muu noqon dhegeysta baa waxayd markuu madaxweyne noqday isagoo cabdiraxmaan cirra igu yidhi wuu wareejiyay guddoomiyaha ka soo hormaray isagaa diiday cabdiqaadir baa xisbiga sax ee madaxda xisbiga dib loogu dooranayay ee loo cusboonaysiinayay ayaa ka soo hormartay waxaa la sameeyey guddi qabanqaabo oo ka kooban hoggaanka madaxda xisbiga oo weliba dee cid waliba ku jirto reergo dhan ku wada jiraan roob baa daayay maasha allah guddida waxay soo jeedisay in lagu noqdo qaabkii hore ee ka horreeyay intaan xisbiga ku soo biirin ee xisaabta u dhisnay ahayd guddoomiye si shaqeeyay xogeeye ku xigeen guddoomiyaha golaha dhexe iyo ku xigeenno way standardkii baarlamaanku baasgareeyay xeerka marka labadan xil ee iyadoo nala accommodate gareynay annaga iyadoo la accommodate gareynayo wasiiradii badnaa weliba angeeyo intaa dhaafiyo miya ka soo goostay angeeyo isagoo la magarasa wala waan diiday isagoo la guddoomiyaha lagu wareejinayay waan diiday oo ma dad badan la yaabeen warataan kursigiiba fuulin sidee buu xisbiga u wareejinaya riyaal ma wareejin wakaas siiraay ma wareejin nin waliba siiraay markuu madaxweynaha noqday iyo xisbiga wareejiyay صح موسى هو كان صدح سنوات ديرات متحوينها موسى سجى وريشنا كاين وحوي يرجع بالله شرن شردي أنا ولي عكت سارين يوريشي وأنا نيل سمي صح بركام حي نقطة حركوا حفرية إن قدوميها يكو حيجنا دبا الوتر تمام سو تشيلين تا جودة قابن قابضة وحلقة عتي جودة فلين تحسبها ويرد يجامدوا إنه كوبيه مركا واحد نقطة قان حزبي وتامة وقدومين وقلادو ساحي ورتالك هسي تاجنتها أنا يقير كيبو فرنتهاي إن نرتطنو waxa kaloo jirta markii doorashada laga soo baxay 2017kii in 2018 ka bilowgeedii aan Cabdiraxmaan Maalin oo martiqaado guriga martiqaado wuxuu ii soo jeediyay inaan xisbiga aan ugu wareego صح waa markii doorashadii 2017 aad ka soo baxday wali baad dhacday aan dhacay woos galiye ka war ma dhaco wariya ninka aad u ayuu ii soo jeediyay dhacay kula dhacay oo ku qaldo odayga iyadoo shirweynihii la gaadhay aan kugu wareejiyay adiga gudoomiyenimada si meel gaar ah oo gudoomiye xisbiga aad noqoto rasmi ah ilaa inta la gaadhay shirweynahana markaa u sharciyeeyo
وايه ومقليسان عبد الرحمن عرو سدا isagu sheegay 2018 ayuu ku gudoomiyenimada uu ku wareejinayaa marka Ciro gobonnimo ayuu sameeyay iyo sharaf uu sameeyay ninkaasna waxa weeye isaga diiday oo yiri ma garanayay yaan la igu wareejin marka waxa weeye Ciro horta wax cid qabsan karto oran karta waxa weeye uu yasaya iyo xisbigiibu nin kala siiyay iyo waxa soo dhan ma jirto Cabdi Qaadir Jirdaan afkiisa ka sheegay marka Ciro isaga wax waajib oo saaran ma jiro hadduu qofkiiba uu diidayso oo deeysa waan rabin oday marka dhaqaale la'aan baa haysa ma garanayay isla uu xusayba dhaqaale ma hayo hantidiisina ma garanayay gurigiisina ma rabo inuu iibiyo marka anu waxaan soo jeedin lahaa oo nin odayga laga daba tago labada shirkadood hal milyan ha bixiyaan shirkadaha ma garanayay waaweyn Telesom iyo Daabshiil iyo halka 2 milyan odayga hal la siiyo gudoomiyenimadiisina ha loo daayo xirsina ha loo sheego la yiraahdo odaygan 80 jirka wada anu saasan soo jeedin lahaa waa hadii ma garanayay saas ay sax tahay laakiin waxaan malaynayaa arintaasu suurtagal haday tahay waa okay saas oo laha hadii kalena waxa weeye ninkaasi maanta waxa reebay wax kala maaha oo wareysiga caaw bixiyay weeyaan ee uu runta kaga hadlay inaan ma garanayay beeshiisu garab taagnayn beeshiisna dhibaatada haysta uu sheegay sababta xildhibaanadii golaha deegaanka ay u soo bixi waayeen waa sheegay ay u dhaceen waa maqaalafo xumo waa isqa qabsi waa iyagiyo ma garanayay isla degay xaasidaya isaga inta soo dhan sheegay marka ay soo saxabaan leenahay ku soo saxa oo ma garanayay arrimiina soo dhamaysta way qodobkana intaas kaga baxay Cabdi Qaadir Jirdaan waxa leeyahay meeshiiba wax isku balaadiyay xirsi si yar fudud buu ku helay Charles baad ka heshay xirsiyow raganimo aad ragga dheertay kuma helin Cabdi Qaadir Jirdaan ilaahay meel ku qabtay meel baa ku jabtay hebel baa meel u jabtay ma maqli jirtay marka ha iska dhigin xirsiyow nin karti iyo ma garanayay aqoon iyo dadaal ku soo helay ma tiid adigu booska shalayto kulmiyaad hayd shalayto dumarka xiriisay shalayto waxa ay chief of cabinet-ka dadkii laga qeyliyay shalay tahay ha iska dhigin marka nin soo daahiray iska dhigin ha iska dhigin ninkaas maanta waqtiga reebay waqtiga ninna waayaha gaba ya ninna waayaha gaba heeso kuma jirin ya labadaas adduunyada ma garanayay maalina waa adiga yawm lak wa yawm khayrak marka xirsi Janiska uu helay maaha Janis raganimo iyo loobin uu ku keenay maaha waxa lagu amaani karana maaha ninba dhaqaale u waayay booski ninba ma garanayay taageeradii garabkiisa ka baxay marka iska dhigin ya nin ma garanayay sare tagay oo hawada maray iska dhig way Maxamed Xaashi ayaan u imanaya barnaamijka waxaan kaga baxay Maxamed Xaashi horta siyaasiga Maxamed Xaashi waxaan ka tacsiyeenaynaa sidii raggii horeba ay ka tacsiyeen in xisbigii kulmiye laga saaray waxa la sheegay oo jaamac Shabeel uu ka marag furay Ali Gurey uu sheegay Allahu sallallahu alayhi Faysal Cawraba sheegay intuba waxay sheegeen in Muuse Biixi wax abaal ah taanu lahayn Muuse Biixi abaal ma yaqaano abaal ma laha raggii isaga soo saaray uu maalinba nin la dagaalama maalinba nin buu ayuu qoorta qabtaa shan nin baa isku marxaad furay waxaana la sheegay markii Siiraaya xisbiga u diiday Muuse inuu iska sharaxo xataa gudoomiye uu ka noqdo ninkii la dhintay la googa inuu ahaa Maxamed Xaashi maantana Maxamed Xaashi inay yar intuu waraaq ugu soo dhiibay inuu yiri hebel xubinnimadii baa laga qaaday golaha dhexe bari hore laga qaaday horta Maxamed Xaashi golaha dhexe bari hore laga qaaday golaha filinta kuma jirin xubin kama hayn xubin uu bukaa bari hore adiga la bashaqiyay wala bajaqsaday hebel marka waxa weeye imika wax laga qaaday oo xiliyo badan ma jiro ninkaas waa la dulmiyay Muusana waa ku jazaaray waxaan leenahay Maxamed Xaashiyow nin raga tahay ficiltan war ninka la garab istaago reerka uu ka dhashay habar jeclaan u sheegay Maxamed Kaahin bay qaarna u yaaceen qaarna wax u yaaceen ma garanayay anu waxaan rabaa Maxamed Xaashi iyo xirsiina wada shaqeeyaan xisbiga wadana waxa leeyahay war ninka uu tago waxa ku tiraahdaa xisbiga soo gal ku dhax ya war ninka hal soo maslaxo
ninkaasi muuse ha la googoo muuse dabada dhulka ugu dhufto dabada dhulka ugu dhufto muuse shaani intaasaan odhan lahaa muuse shaani dabada dhulka ugu dhufo aan ku odhan lahaa ninka ragga waa la ciilay muuse keligii baa ku hadhay markaa nin waloo muuse ku hadhay oo muuse agsi ag joogow muuse waxa weeye siduu yidhi fartiina eedi doontaa waa eedeen nimankii soo saaray magaranaysaa cukuse ayaa ka dadaal badnaa cukuse xil yar buu u dhiibay cukuse waa nin magaranaysaa faris maata waa iska casilay xilkii oo uga soo tegay meesha marka waxaan leeyahay war muuse xilkiisa waxbaa isku dhajinina iskaga taga meesha waxba idima yaalaan barnaamijka waayo qodobka ugu dambeeyaan ka hadlay waxa weeye waa dhameeyay waan filaya qodobadii maxaa kaloo ku jira warbaahinta waayahay intaasaan kusoo gabageyna caawa muuse abaal ma laha muuse layskaga tago oo magaranaysaayey yaan muuse magaranaysaayey la taageerin qof una ha taageerin muuse habeen wanaagsan baan leeyahay dhammaantiin magaranaysaayey insha allah intaasaan kusoo gabageynayaa soomaalina waxaan leeyahay hore u socda caalamkana waxaa la qaybsada meel fiican soomaalidu ha gaadho soomaalidu iyagu yaan isku jeedsanin qolo walba sidooda meel ha u gaadhaan qofka soomaaliga ee caalamka wax la qaybsanayna ha lasii baritaaro xaasidnimadan iyo lugahan la qabanayo ha laga daayo ayaan odhan lahaa magaranaysaay dowladda soomaaliyana shaqo wanaagsan bay haysaa waxaa kaloo runtii aan halkan caawa si weyn uga taageeraya ra-iisul wasaare mahdi maxamed guuleed the lion will come back waa soo noqonayaa mahdi maxamed guuleed waxa uu tartamayaa xildhibaan golaha shacabka ah ayuu tartamayaa isaga iyo biixi iimaan labadaa ninba iyo ragga kale waxaan leeyahay waa guuleysanaysaan ninkaasi kursigiisu waa banaanka mahdi iyo biixi iyo ragga lamidka ah kuraastooda waa banaanka nimankaas hala taageero waana guuleysanayna insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed abaalkii uu idin gashaday mahdi ee uu soo celiyey badda soomaaliya waxaan rajaynaynaa inaa u abaal guddaan oo sawirkiisa iyo taageeradiisaba aa muujisaan xafladdu barnaamijkaa ku shaacinayana aa kasoo qayb gashaan oo dhammaan nimanka magaranaysaa ee mas-uuliyiinta soomaaliya ku sarreeya ilaa madaxweyne ilaa dhammaan wasiirada ilaa ragga caanka ah ee siyaasadda soomaaliga caanka ku ah inay kasoo qayb galaan oo nala dhistaan mahdi maxamed guuleed siduu u noqon lahaa magaranaysaa golaha shacabka ninkaas soomaaliya wax badan buu kusoo kordhinayaa wax badan oo magaranaysaa dhimanna waa kusoo darayaa waa nin howlkara waa harweekara waxaan leenahay waad kusoo baxaysaa booskaas waa ku banaan yahay soomaalina waad gashatay abaalkaasna waa kuu soo celinaya xildhibaanada waxaan leeyahay u codeeya ninkaas habeen wanaagsan barnaamijka intaas kusoo afmeerayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu nabigana ku salliya barnaamijkana